annagu ma ku faraxsanin walaalahay oo soo dhibaatoonaya badda isku quuraya isku tuuraya hablo badan oo dhalinyaro ah inama badan oo dhalinyaro ah nooc kasta ba ha noqotee maanta waxaan rabaa dalka Soomaaliya meel kasta ay tahay dalka Soomaaliya meel kasta ay tahay dawladda la hadlaya dawladda waxaan rabaa caawiya dhalinyarta shaqo siiya may tageen haddaydan shaqo siinin annagu ma ku faraxsanin walaalahay oo soo dhibaatoonaya badda isku quuraya isku tuuraya hablo badan oo dhalinyaro ah inama badan oo dhalinyaro ah nooc kasta ba ha noqotee maanta waxaan rabaa dalka Soomaaliya meel kasta ay tahay dalka Soomaaliya meel kasta ay tahay dawladda la hadlaya dawladda waxaan rabaa caawiya dhalinyarta shaqo siiya waxaan guuri ma garanaysaa qofka dhanna koofiga dhacba galabtii ama ya joogi hagaajiya waxa ka darban ku sheegaya ninkii maalintii imtixaanka marka gali wuxuu yiri 3 points oo 3 points kii baan aan martay electrema wada ad ku soo laabto aba bireeg waxa ka qabtay waa saadada wuxuu duub waxaan waxa inta la eegta gabta assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jaraka laga dawarsan ya waa sheego travel with sheego sidii doonta ba ahaato muuqaalkaygu maanta horta in ilaahi wa inna ilayhi raaji'un dhamaan waxaan ugu taxsiyadeynaa Soomaali Maxamed meel kasta adduunka joogto dadkii dhalinyarada ah ku dhintay badda ilaahay inuu qabrigooda nuuriyeen kasto su'aal qabriba lahayn qofka badda ku dhintay dabka laakiin haddana sheekh dirir baan dhageysinay qof tahriibay maaha way stuureen dadkaas marka ilaahay ha soo muxuu ahaa u naxariisto dadkii dhintayna dadkii muxuu ahaa waalidiintoodna ilaahay ha u qalbiga ugu reebo mawduucaygu maanta wuxuu daaran yahay waano اللهم صل على محمد geeridan aan taxsideynayno اللهم صل على محمد siyaabaha ugu dhow aad kaga badbaadi karto ilaahay baa horta qof walba waqtigiisa qoray haddana de wuxuu ilaahay ku yiri haddana imka ilaahay san saxanaya ilaahay baa ilaalinaya ilaahay meel barso saxiib ku yiri ina tare isu dhig mooran sidii doonto ba ahaato tabada aad arkaysa eedar madow waxaad ugu soo hortaysaa ama aad u soo haligmaysaa waa bartan ama Yurub waa dogan greenka waa meesha doonto ba it's not real rumna marka halkan oo kale sida kugu dhow ama sida maxaa la yiraahdaa aad naftaada ku badbaadin kartid inkastoo imka sidii hore waa diyaarado iska dhacaan imka diyaarada iska dhacdo mushkilad bala diyaaradu waad fuushayba to maxay islaamaan hadan biyo ku dhintay hadan diyaaradu waa isku qiimada laakiin chance ka yar horta anigu markii ugu horeysay markab raaco waxay dhooriyo imka oranada daadaada halka mar adigu ka bax aniga yar aniga abshiga cabana nasraade Saudi Arabia ka soo raacnay berberena ka 3 days min la socotay dabada hooyo markaas aad mid weyn bad la socotay marka buu hade dadkana tay fuulayeen ma taqaan dabada abshiro yar tayna fishka lagu bacbay saareen haduu qof mid kale maxaad u astaa how many hours maybe 2 days ba socota qofkii kaada qabata ama markuu kaadi dhaxanta maxaa naxariinta ku qabato waa sii deerisa baash ma ka soo ciirtaba mar xagaas uu sii deerisa hoosti ka soo galaysa ayadoo kulul sidaan lagu yiri ilaahay ma tahriibine alxamdulillah anigu si qabooban ku yimi sidii doonta ba ahaato muuqaalkaygu maanta de maxaan ku hadli karnaa waan yaabanayba dadku way haligeen yihiin mid kale ciyaalka yar marka ay haligmayaan ama ay sameynayaan inay de sameeyaan tahriibta waxaad weesata waxan inay reerkooda la og yihiin kafay baan lagu wada cabiya ama iskuulka laga soo rawaxaya ama iskuulka meeshan cisho tigmay horta wal meesha lagu gaaraya decision buu gaaraya waxa la hebelow marka waxba ma hayan bareerka hadii doonaan waxa la sameeyaa meel banaano sidan oo kala imka inagu halkan aan dooga ka beernaan marna oo si socono marna soo socono ya halkan sadaqad baa laga dhisaa ayaa meeshan la degaya halkan baa la kala iibsanayaaba marka islaantii waxa lagu khasbaya xulo dirqi lama waayo Soomaaliland tiraada buufiska ku galay buufiska waxa oo isugu weyday waxa ku sugaa siiro baad ku celisay fanka qabowda dad siiro ay galaysa sida dawlad waxa dhacday ad sabaxa jooga rag ba jooga magafayaala way ka kaxeenayaan ama Hargeysa gudaheeda ama Soomaaliya gudaheeda ka kaxeenayaan ila Suudaan ila Liibiya waa lagu kharash kareynaya Suudaan markaad marayso kharash qaba ayaga qaba kuwan mukhalisiinta kama dambaysi mar reerkii la soo hadlaya markay jiq kaaga dhigaan adoo kala lagu soo wacaya oo de kafayga halkaas ka eegtay ka daay ka saara bismillaahir rahmaanir ka saara wixii wadaad ama sidii doonta baato intaas oo kaftay waxa dhacday halkaas ka kaxinaya markii halka joogan bar reerkii la soo dhaxal gulay hadda keen lacagta la hadal reerkii
salaanta maxay sameynaysaa halkan ay islahayd kugu markuu roobku doo ama cirro markuu wadanka qabsado hal lacag badan siisid aad iibisid ay khasab lagaga qaadaya halkii konta ku go'ay ba 20 kala siisanay Allahu akbar sidee markaa waxaan ugu soo gaari karnaa ama aan garanaysaa ama caawin karnaa hatta loo yara tahay ka caaw dadka waxaan u hayaa information badan laakiin uma malaynaya in la maqlayo dadkii waalidkooda maqli waayba maanay maqlayaan halka ku haysta dadka halkan wuxuu joogo ama Yurub meel walba wuxuu joogo nimanka xaan karaan waa been anigu horta meeshan aan joognaa war meed waalantii soo jeed war hadduu saa u seexdo toban buu soo kaxin karaa qofka kaliya waa qof oran waxa ma ku qaban karo waa been adigu ku diiday adigu sidaad halka inta irbad kaga muddo irbadaad hadii day magaranaysa dhibronta uu qaadan waayo qofkii iyo ka noqonayso inay xididka raacaysaa anigu yeedadii markii hore way halkaas ka muday والله meesha xanuunsa markasta naga daa sidee markaa wax suurta galaysaa horta marka hore waxa dileeyahay waa salaamantiin aad iyo aadna waxaan uga xumahay geeriyaha xun aan maqlayno maalin kasta anagoo halkan fadhina anagu ma ku faraxsanin walaalahay oo soo dhibaatoonaya badda isku quuraya isku tuuraya habla badan oo dhalinyaro ah inaba badan oo dhalinyaro ah nooc kasta ba ha noqotay maanta waxaan rabaa dalka Soomaaliya meel kasta ay tahay dalka Soomaaliya meel kasta ay tahay dawladda la hadlaya dawladda waxaan rabaa caawiya dhalinyarta shaqo siiya may tageen haddaydan shaqo siinin dhalinyartu may tagteen marka waxaan idin leeyahay caawiya dadka caawiya carruurta caawiya reerka caawiya dee maantoo dhan yaanu professorkii 40 sannadood fadhiyay kursiga yaanu fadhiyin ha uga kaco inanka yar ka soo baxay jaamacadda uga kacniyow uga kaco inanka yar jaamacadda xildhibaanada dhalinyarada doorta wasiirada dhalinyarada kale ha noqdaan president nin yar ha noqdo madaxweyne wadankan aan joognaa waa runtooda waxay ugu soo cararayaan wadankan wuxuu leeyahay maxaa la yiraahdaa a lots of rights badan buu leeyahay ilmahan hadduu soo gaadho meesha future buu leeyahay laakiin muxuu ku soo gaarayaa marka waxaan leeyahay dawladda haddaana maqlaysaan aanan noo inay maqlaysaan in kale dhalinyarta siiya chance shaqo siiya inan yaro hooyadii ku soo korisay basal iyo tamaandha ay meel la fadhido jaamacad ka baxay shaqo ma hayo ma anfacayso annaga intaan joogna waxaan leeyahay wadankii uu hagaagay soo noqda muxuu hagaagay carruurta wadanka joogta shaqo siiya carruurta wadanka joogta hagaajiya waalidkii waa dhibteen waalidkii way hoogeen وحاجاتي لا هذا كويس قفكي جامعتك ka soo baxa haduu shaqo doonto lama siinayo laakiin xildhibaan haduu geeyo ma sultan qabyaalada wax isku geeya inta markaan mid waxaan u imid qabiil baa keenay wadankayga iga soo oriyay ma anfacayso qabiilka waa inuu istaagaa dhalinyarta wadanka dhisaysa ee dib u soo noqonaysa dib baa loo noqon doonaa bay ahayd heesan halkan ka qaadnay mar dib baa loo noqon doonaa wayna soo noqdeen dhalinyaradii inta way naceen kuwa halkan joogay ku koray ee ku dhashay inna way dhinteen in waa la toogtay in jeel bay ku jiraan inta kale wax barateen waxay rabtaa inay soo noqoto oo wadankii meel ka qabsadaan chance ya reer carruurta inay wax ku noqoto dawladda la hadlaya anigu dawladda Soomaaliya oo dhan say rabtaba ha noqoto idinku qaada Somali this I don't care whole Somalia give the kids chance my second maxal dhaha kale ee ku xigta aan ka hadlaya yes hays dilina waxa jirta waxyaabo badan qofkii ehel halkan u joogan carruurta caawiya waa iman karaan reerka haday reer ku joogan waa lagu keeni karaa lacagtan aad bixinaysid ku ordaysid hadda jaamacad ka soo baxday ku kaale halkan adoo jaamacad qaadanaya university-ga qaadanaya degree kale waa lacag badan waan idin sheegay hore idin ku sheegay laakiin waa lacag aad ku imanaysid oo ah safe oo iman kartid as a student badu lacag badan samaha de waxa ka fiican ku kaale student nimba ku sii dhiibiyate imka anigoo ilmaadara hadda ii xiran tahay yaa taraani bariyaha ma qadin arlaban hayaa madmadoow kaale ka hayso inta anigu sii daayo boosaas waxa ka jirtay dadka maaragtay tahriiba xabashada way tahriibtaa soo ma waxaan ahay very emotional very sad about all these young people oo meesha ku jabay oo ku ba'ay aad iyo aad baan uga xumahay xagee ka dhoofaan waa kaas waxa lagu leeyahay airportku ka dhoofaya where is the government suu dhoofaya in yaro carraya weydiiya xagee u socdaa controller airportyadiina oo carruurta celiya waa carruurtii loo baahnaa waxa dhimanaya waa dadkii dalka hagaajinayay waa carruurtii dalka weynaynaysay waa carruurtii adduunka iyo dalka Soomaaliya u dambaynaysay
odayaasha ka baxa meesha dadda f baan idhaahnaa astaghfirullah kursiyada ka kaca oo dhalinyarta siiya jaamacadaha ka soo baxday oo joojiya inaad dhahdaan waxa istaahila adeerkiis baa haysta jooji waa inaad ku siisaa wuxuu yaqaanuu jaamacadda ku tagay feer noqda dad badan oo jaamacada ka soo baxo liitaa jiray dadka hadda dhinta waxaa ku jiro dad oo inta xamar shaqo raadiyeen shaqadii loo soo diiday la yiri qabiilkaada meesha ma haysto kaleeto oo niyad jabay oo soo baxay oo meesha imid bale baa wuxuu ku leeyahay inanka halkaa noo jeeba cabdi wuxuu leeyahay waxa ka soo baxay xamar dad jaamacada ka baxay dad jaamacada ka baxay oo loo diiday shaqo waaye shaqo maxay noqdeen they become frustrated adduunka bay naceen lami aan ka tago meeshana ku soo ordaysa it's not easy maaha laakiin I know why ay rabaan noo yimaadaan noloshan way ka fiican tahay noloshii Soomaaliya wuxuu noqonayaa qof ismaamula qof aan u baahnayn adeeriya abti iyo anybody oo meeshu rabo iyo kartidiisa iyo xooggiisa ku tagi kara marka walaalahay Soomaaliya jooga caawiya dawladda caawiya caruurta dhalinyarta chance siiya shaqo siiya odayga saaxiib ka kac kursiga inanka yar jaamacadda ka soo baxay u dhiib kursiga Soomaaliya meel kasta joogaan kursiga siiya wiil iyo gabadh oo jaamacadda ka soo baxday deserve give them a chance مخلصينتا وإن لقبتها لجوجيا مخلصينتا الحمد لله أنا ما سو غاريسو هداي سو غار لهيد وان ودا خيدن لهيد I wish in an area that ما يمن كرا وان فوقناي Canada it's end of the world Canada it's end of the world but it's the best country in the world adduunka meesha ugu fiican weeye marka haddaad rabtaan inaad timaadaan lacagtan badan ee badda ku tagaysaan student-nad waxaa la hadlayaa dadka jaamacadaha ka baxay jaamacadaha inta waa iman kartaan scholarship baa xataa heli kartaan ka apply gareeya idinkoo waddankiina jooga lacagtu way badantay dee waa haysataan lacag waxaad bixinaysaa 10,000 iyo 20,000 adoon guarantee ahayn tani waa guarantee haddaad studentnimo ku timaadid waa guarantee laga qaaday mid $10,000 balka warane meel lamu gaadin xagee joogan meesha joogan waa akhra la iibsaday waxa maxay halkay joogan markay soo gaaraan halkay joogan Algeria wuxuu imaanaa qof $8,000 $4,000 dantii waay wala wuxuu ku leeyahay Algeria lagu imanaya $8,000 and another from Algeria waxaad rabtaa marka Europe kale another 8 or maybe 10 why ku kale halkan please waalidiinta waxaan leeyahay caruurtiina kumitida oo u diida oo siiya labada furood duco amba habaar warkii duco rabow hooyadaa la joog oo ha dhibin iyo aabbaha ha dhibina ku imaada the right way Canada ku imaada ordo raadiya yaa idin jooga ordo is-register gareeya refugee campska kaasaa idinka fudud ordo is-register gareeya refugee campska anybody oo smart ah oo horta English is number 1 qofkii smart ah oo Ingiriisi yaqaan amba qori kara amba akhrin kara apply university adoo wadankaaga jooga waad helaysaa America iyo Canada apply gareeya I'm giving you information maanta waan ka xumahay my program kayga dhan wuxuu ku socdaa maanta seen u save gareynaa dhalinyarta ku dhamaatay badda seen u save gareynaa in su tagno Soomaaliya aan isu tagno walaalahayga Yurubka jooga iyo America aan isu tagno sidee baan u save gareynaa dhalinyarta dhamaatay ee dadkoodina ay calool xumo iyo murugo u dhinteen sidee baan u save gareynaa we should do campaign we should do qacmahan isqabsano and let's help walaalaheen and dawladda please abti ka kac kursiga oo inanka yar uga kac kursiga oo chance inuu wadanka maamulo wuu maamuli oo waxbuu soo bartay chance ka siiya aad iyo aad baan uga xumahay waalidiinta halka caruurtoodu ku geeriyootay waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay idinka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun we all going but how we going kullu nafsin daa'iqatul mawt akisaynu tagaynaa waxa ku tagaysaan idinku oo badda aad maraysaan adaa tagaya ilaahay muu ku odhan tag haystuurina okay muuqaalkeena ugu dheeraaday waxaan u malaynayaa inaad ku cajis hadii aad ku cajis waan kaari muuqaalka xiga inagu isku duwaxna kaga tageynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته please like share subscribe هنجي لاوينا يسان اسكو تغنا ان ولا لهنا عاونا
share like subscribe anigoo idin leh we love you and I love Somali oo dhan waan idin jeclahay Somaliland waan ku jeclahay waa Somali oo dhan waan jeclahay Soomaaliyeed sidee baynu caawinaa walaaleenteen oo qacmaha isu qabsanaa oo carruurtaas dhibaataysan aanu joojinaa abti kursiga ka deg inanka sii kursiga aad iyo aad bye bye subscribe like share